madaxweynaha dowladdaasi goboleedkaasi Puntland Siciid Cabdilaahi Deni ayaa maanta cafis u fidiyay maxaabiis ku xiran maamulkaasi. qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne Deni ayaa waxa lagu sheegay in 294 maxaabiis madaxweynuhu uu fidiyay cafis kuwaasi oo ku eedeysnaa dambiyo fudud. sidoo kalena wararka ayaa waxa lagu sheegayaa in ujeedkoodu ay tahay sidii loo xakameyn lahaa cudurka safmarka ee coronavirus. Puntland ayaa dhinacyada kalena sheegtay inay bilowday qorshe lagu diyaarinayo haamaha keydka ee oxygen-ta si loo helo oxygen ku filan deegaamadaasi. toddobaadadii u dambeeyay Puntland ayaa waxay waday dadaalo ay kaga hortagayso cudurka safmarka ee coronavirus iyadoo soo saartay go'aan looga hortagayo xanuunkaasi. Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda waxa laga xaqiijiyay 55 kiis ee cudurka safmarka ee coronavirus iyagoo lagu karantiimeeyo magaaladaasi Muqdisho. waa Xamse Axmed Saleebaan Xamse Dabaare telefishinka caalamiga ee Star TV.